السلام عليكم أصحاب دمان من كستو جوجتين سو دوادا مانتا waxaa idin wadnaa maanta waxaa idin wadnaa waa abwaan fanaan majaajiliste kabaniste laxamiiste oo loo yaqaano abwaan Ibrahim Ali Muude awdange kusoo dhawaada daawasho wax asxaabta kumskay bariza ay karkarinahay kilidii beerka kaalmo u baahan kubka iyo naaska korba igu hay kabado cishqiga waalka waay amba kululaada isku kay koolay okay abwaan awdange heesaaga mid ma soo qaban kartaa biwa banadire bartankii salaamiga buush ka laga fo waaw isla hees biwa banadire bartankii salaamiga buush ka laga furay daawasho wacan biwa banadire bartankii salaamiga buush ka laga furay baasta iyo bari waa majaajiliste Ibrahim Ali Muude wuxuu ku dhashtay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Jambaluul inkastoo oo noo sheegin taariikhdiisa rasmiga ah ee dhalashada balse fanku wuxuu ku soo biiray sanadii 1979 dadka sanadka waxay ku xisaabtamaa axad todobada ayaamood sida sabdi sanadkii sabdiyaad sanadkii axadaad ani marka waxaan dhashay isniin sanadallah oo markaa waxaa loogu bixiyey isniin eexlaa ay waa la yaab waa sida u jeediin dadkii hore si waxay noogu dubnaayeen sanadku markay dhashtaan ama xilligaas wixii dhaco ayaa lagu xisaabi jiray oo sanad looma qaban jirin hadda waa u jeediin marka asiga wuxuu dhashtay maalin isniin ah waa sida asiga hadalkiisa aad ka maqasheen maalinta isniinta ah maalintaas maxay ahayd wal noo sheeg abwaan macnaha roobkii do-ay waxaa loo qaatay caalamka oo dhan inuusan meelba dhaafin oo ku wada do-ay saas darteeda looga bixiyey isniin eexlaa okay abwaane u sheeg dadkan deegaankee ku dhalatay dhasha anigi jior iyo walna weyn meel u dhexaysa waxaan ku dhashay Jambaluul la dhaha waa garanaa abwaane fankana xilligee ku soo birtay waxaan ku soo biiri 1979 aniga bintu Cumar Gacal Zahra Dawo Axmed Inshaar oo waa badnaa imtixaan naga la qaaday adig abwaan waa garanay fanka kaalin noocee ah ka qaadan jirtay maxaana soo bandhigi jirtay oo talent ah kabanista waxaan ahay heesaa waxaan ahay jilaa waxaan ahay laxami okay abwaane heesaaga mid ma lagu soo deegi kartaa jacayl bay igu dhacayo wajah wareeray adna waan ku jeclahay tanna waa aan jecel okay abwaane magaca awdange maxaa lagu bixiyay sabab noocee magaca awdange lagu bixiyay abwaane awdangan waxay ugu baxdeen maadaama awdanga hadda leedhaha caalamka oo dhan laga yaqaano ceebtayda ku asturneed maxaa jira nin Soomaali oo bac ku alxamad daango oo magaalada la soo galo rasaq raadi ana ugu horeeyay okay abwaan waa garanay daangada ma warshada lahayd oo ku wareeji jirtay masa shakhsiyo qaar ka gadi jirtay warshadan ba ka dhigay 14 degmo oo ay gobolka Banaadir magaasaan 14 cunug u kala dhiibi jiray wax xayeesiyay waxa ugu horeeyay daangadayda idaacadna laga manaayo abwaan dadka qaar markay ku arkaan adigoo daanga bac ku wareejinayo maxaa caqabado oo aad kala kulmi jirtay abwaan nin waxa waaye daangada intaan gadaayo lagu qoslayo no cayaaraha gobolada markay jirto kuwa Soomaaliyeed waa yeelo ilka hadda sida ani afkayga ay noqdo ay ahaayeen asaga abwaane markaas adiga ilkaaga see ahaayeen ani ilkay joostay ahaayeen asugu suusa ewer ka dhig laakiin ani suus waxaan ka say ka masjid lagu baago adar macudwa oo yiri waxaad wado cudbi ani waxaan ka saa gabar sportiga jecel abwaan marka maxaa sameysay marka ku weydiiyay cudbi aad u ka siisay gabar asiga qabkan si kale u waday maxaa sameysay marka dhinacyaan fiiri hadar maanta cudbi ma soo bixinaarino muxuu ku dhahay marka abwaane warani gabarku ma aanan weydiinin markii uu ku weydiiyay oo dhahday cudbi ma joogto oo ku dhahay cudbi kuma weydiinin ee waxa wado waa maxaad uga jawaabtay adiga anaa wada ku sheegaa dhageysaan waxaan ri waa salool ama daango ama qaloon nin walba soo u yaqaan
oo isu soo mari dab saliid bac milix iyo anigoo wada oo maxay daawo u tahay weli odag bidaar fakatin waa ku tahay okay abwaane markaa u sheegtay oo ku weydiiyey waxay daawada u tahay waa maxay uu ku dhahay maxaa adigana ugu jawaabay waxaan raadar waxay wax badanay daawo u tahay sidii ka hortaga bidaarta cusub tan fakatay duqnimada ilkaha suuska galay ineemiyada umulowga madhicrin jururuqa dusandariyada malaarida findoobka naas abtiyooga umulsibiyaanka iyo cuncunka hoose abwaane muxuu ku dhahay markaa dhacday wax kasta ay daawo u tahay wallaahi qosaka iga dhamaad wax kasta daawo u tahay markii aan dhacday muxuu ku dhahay marka adigana baca intaaba daawaadii u tahay adar maa farmasi furitidku haddaba waxaa jiray qiso kale oo xanuun badan oo majaajiliiste ibraahim cali muude oo xabsiga loo dhigay xilligii dowladdii dhexe haddaba qisadaasi maxay tahay habeenada ka mid ah waxaa cayaarayay gabdhaha xulka qaranka ee masar iyo gabdhaha xulka qaranka soomaaliyeed baasketka luujina meel la dhaha saldhigga bari iyo waa isku agyaalin iyo meesha baasketka lagu cayaarayo waxaa dhacday inaan BIB-da madaxda meesha ay fadhisaan waxaan ka badiyey socodkaan ka badiyey ilaa gabdhihii ay rabaa inay fiirsadaan moogtahay bastoolayaal markaas socodka ka badisay kadib maxaa kugu dhacay yaasha iyo mameelayaasha iyo babaayga iyo bambeelna anigina dheelba igama hayso waxay iga haysaa daangadan inaan lacag ku bedelo iyaga markaad hataan hortaada saan dhaca qofka aad fiirsanaysa maxay leedahay saasaa leedahay no yaa saanaan ka badiyey aan ka keenay moogta markaas midaa fikiri wuxuu sameeyey warqad aniga fiir okay abwaane waxaa noogu sheekaysaa waxbarashada faa'iidada ay leedahay iyo dhibka ay leedahay dhibaatada aad ka martay barasho la-aanta dhibaatada ay leedahay warqad A4 soo qaaday wuxuu ku qoray fartan isku dardarka snod mool maa la dhahaa ma aqaan 10 xaboo daangan waa iga gadi lacagtina waa ii hormariyey waxaas dhahay saldhigga ninka jooga ugey warqadan iyo 10 xabo daangada lacagtaadana waa ku hor soon dhaqso aad way macdahay baashaas ii raaciyey waa orday aniga daangadii aan la orday horta warqadii aan fiiriyey hadday ahaan lahayd midaan alifbeetada ba'taada intaan magaalada socdaan waxaan akhrisan jiray ma ogtahay macmacaanka maqaayadda timijaraha baalbiyeeriga waa fahmi lahay haddii ay alifbeeta ahaan lahayd marka waxaas ba ii qori waxaan ka sayninoo isku dardarsan saldhigyaan geeyey daangadii waxaan dhahay nin warqadan iyo daangadan nima ku soo dhiibay oo BIB-da fadhiyo oo madaxda isboortiga ka mid ah waxau saartay meeshii dad buug weynaa jir moogtahay dadka isdacweynaa magacyadooda lagu qoraa oobiga oo kor saartay daangadii baxan maaga marka abwaane markaa waraqadii geysay xabsiga geysay saldhigga geysay oo waraqadii aad u geysay ninka saldhigga joogay iyo daangadii aad u geysay dabadeed inaad soo baxdaa ratay kadib maxaa kugu dhacay abwaane noogu sheekay tahay tunkaas igu dhegay maxaa jiraan warqadan aan aragno warqadii iyo daangadaba adaa liigu kaa soo dhiibayaa arino niyow waxa adaa iska leh soo dhaqsaa lee dhahay daahin waqti ay ugu socdeen okay abwaane waxaa noogu sheekaysaa marka koowaad inaad baxdaa isku daydo waa laga diiday waa lagu soo qabtay markii labaad maxaa haddana aad kala kulantay inaad baxdid markaad isku dayday dhibaatada aad kala kulantay abwaane noo sheeg waxaan maaga dhaqaaq haddana sidiis markii hore ii qabtay si ka xoog badan oo ii qabtay an shaki ay galay marka absamaal mataqaanaa qoroogiisu ma aqaaniya laakiin markii lagu hadlayo ani waa ku hadlooha adina waa ku hadloohaysa waa af naqaana haa hadda waxaa inta ku qoran dhagayso yiri warqadii saa inta u kala bixiyo yiri waxaa ku qoran fadlan naga hay ninkaa iyo saloorkiisa intay cayaarta ka dhammaanaysa sidaas ay wada shaqayn wacan mahadsanid aniga xar maliyad iinaas dhahay okay abwaane waxaa noo sheegtaa fanka soomaaliyeed xilligii hore ee dowladdii dhexe iyo fankan hadda xilligan aad joogno maxaa farqi ah ay ku kala duwan yihiin waxay wax badan ay ku kala gedis yihiin okay abwaane waxay ku kala duwan yihiin noo sheegba macawstaa iga dhacday wax weyn may arkeen wax miya hees mi abwaane waxaa ku weydiinaa hees raab ah oo adiga aad diyaarisay ma jirtaa hadday jirto noo soo day bal abwaane
kumaskii bariisa ay karkarinaya kelidii iyo beerkaa kaalmo u baahan kubka iyo naaskaa korba igu haya kabadoo cishqigu waa la kici waaya amba kululaada isku kay kooley ma heesaa dhahnaa abwaanaada tan mase waxaa dhahnaa raab baa dhahnaa maxaa ku qiimeynaa okay daawade soo qiimeeya bal commentiga fikradiina la wadaaga waxaan idinka codsanaa beeskaan inaan noola dhaafin like-ta share-ka and follow-ga insha allah linkiga hoose waxaa idin soo dhigi doonaa youtube-kayga raab waay anaa sameeya haa jacbur waa marka aniga ilmaha raabkayga hadda waa